بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan leenahay walaalkeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Banaadir Muuse Macalin waxaan leenahay soo dhawow, welcome to South Africa, Cape Town. magaalo aad u fiican oo aad u qurux badan oo magaalo xeebeed waay. marka waxaan leenahay insha Allah dadkan Soomaalida halkan jooga aad u jeedo oo ganacsatada oo insha Allah dhaqameedka odayaashii xasaabtii u shaqeysa oo loleysa waxyaalaha insha Allah ijtimaaciga kulligood way ku joogaan waxayna ku leeyihiin ku soo dhawow magaalada Cape Town. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha Muuse Macalin, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Welcome to South Africa. gobolkan West Cape soo dhawow. waxaan aad iyo aad u jecelnahay inaan mar walba soo dhaweyno madaxdeena qaranka nooc kasta iyo heer kasta iyo darajo kasta ay yihiin. insha Allah ta'ala waa isla joognaa hadii Allah yiraahdo billahi tawfiiq. maxkamadda gobolka Banaadir abukaate Muuse Macalin waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow. dadkan Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Western Cape waxay had iyo jeer diyaar u yihiin ama jecel yihiin soo dhaweynta mas'uuliyiinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya heer kasta iyo mas'uul kasta yihiin. gudoomiye annaguna waxaan nahay dadkii baahida u qabay qaybta aad joogto waa qaybta naqusaysa. marka insha Allah ta'ala waxaan leenahay soo dhawow. bismillahir rahmanir rahim. sallallahu alayhi wasallam maxkamad ilaa sharwinta oo sabrayska halkan aan u baahnay South Africa marka dhacay shir yeelanaya garsoorka Afrika halkaas oo la hadlayo Indiya ku kala marka dad ku isticmaalayaan xuduudaha oo si sharci ah isku gudbayaan ayaa loo hadlayaa inta badan waxaa imaan doona garsoorayaal iyo khubaro شغالة مigration-ka Soomaaliyana qayb ka tahay bulshada ka tahay sida lafteeda ugu imaan kan insha Allah shirkaas oo socdo meetingkaas oo socdo إحدى عشر soo socoto insha Allah. السؤال اللي بقول عليه Soomaaliya wafdiga ka socda ma kaligaaba ma saafina kala kala jira si kala jiro kala jiro shaqada jiro khubara jiro marka adiga lixda bisho waxa ka qayb qaadan doono team hortii aqoonsiga oo haysan arrimaha ka leeyno arjinayna marka in Soomaaliya marka ku laabano aan isla jaarkaasino aragtida ka qaadatay Afrika kana hadlayo